عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دبادة language college مقعي ومعلن وهلية إن شاء الله ما تم حقادنا 10 سب وكسابسن عفماتك إن شاء الله بالله تعالى مرهرنا عفماتك وانكشاكيني ما انتنا عفماتك قيبتي سيدي حادا انكشاكينينا مركا عفماتك أما health issues يا وعفماتك انكهلينا marka hore maxaan ka hadalnay caafimaadka guud ahaan oo bulshada oo Soomaali people ku dhacdo today maxaan ka hadlaynaa caafimaadka ku saabsan bulshada ragga iyo dumarka okay xanuuno gaar ah jiro oo ragga ku badan iyo xanuuno gaar ah jiro oo dumarka ku badan marka insha Allah casharkeena muxuu ku saabsan yahay female common diseases and male common diseases okay before we start intaan bilaawin casharka insha Allah idinkoo maadsan maxaan kusoo qortiin qaybta comment sectionka magaciina iyo xagad ka daawanaysiin casharka. Welcome to Language College. My name is Weheliye and today's topic is about health issues. The health issues today we are going to divide it into two: men related health issues and female related health issues. Okay? So it is gender based. It's gender based. So let's start our lesson inshallah billah ta'ala. We have talked about diseases in general. Somali people have common diseases: heart disease, lung disease, and but today we are going to talk about the 4 common diseases which are common in men and 4 diseases which are common in women. Okay, so this is something we're going to talk about. waxyaabahan ka hadlayna muxuu ku saabsan yahay xanuunaha ragga iyo xanuunaha dumarka. Okay, so when we come to men haddaan u fiirsano ragga xanuunka koowaad u badan oo ragga ku badan waa prostate disease DZ maxaa usoo gaabiyey disease. Prostate waa gland oo ragga keliya leh oo maxay ahayd it's one of the gland which is found muxuu ku yaalaa kaadiheysta hoostiisa ku yaalaa. Okay, the bladder ama the kaadiheysta hoostiisa ku yaalaa and it's only meant for men. Okay, we say prostate is a gland, is an organ only found in men. maxaa laga helaa ragga laga helaa dumarka ma leh. Okay, badankine xanuunkan oo prostate diseaseska ama ha noqdo prostate cancer ama benign prostate hypertrophy xanuunaha oo ragga ama prostate ku saabsan basically maxaa laga helaa ragga markay gaaraan 40 wixii ka sareeyo. haddii 40 50 60 70 80 markay gaaraan markaas oo kale prostate diseaseska waa waxyaabaha oo da'da ku saabsan oo da'da keento. da'da markuu qofka gaaro 40 wixii ka sareeyo markaas oo kale prostate diseases way ku badan tahay ragga. haddaad u fiirsatiin prostate diseases waxyaabaha maxaa keen karo badankii maxaa keeno number 1 waxyaabaha oo keeno waa diet cuntada cunaysid. qofka ragga hadduu badsado hilibka cas ama red meat waxa yiraahdo markaas oo kale prostate disease in the future chanceska ama fursadaha ku qaadaya xanuunka way kordhaysaa. Second thing oo waxyaabaha keeno oo prostate disease oo keeno late marriage. ragga hadduu maxaad xagga dambe ka guursado like for example hadduu yahay 30 35 40 markuu xilligaas oo guursado markaas oo kale prostate disease is high in chance of inuu helo. marka prostate disease laba waxa badanka keeno cuntada cunaysid oo badankii red meat la yiraahdo iyo haddii aad guursanaysid xagga dambe ka guursatid late marriage ka la yiraahdaa oo 30 to 40 markuu qofka guursado iyo wixii ka sareeyo way ku dhacdaa. waa factors risk factor la yiraahdaa ma keenaan laakiin waa risk factor. chanceska oo qofka ku dhacayo xanuunkan prostate disease waa high waa risk. Okay, marka qofku gaaro 40 markuu gaaro maxaa la yiraahdaa anytime hadduu qofka gaaro 40 iyo wax ka sareeyo markaas oo kale maxaa la yiraahdaa check up ama follow up al qofka inuu sameeyo oo fiican. Okay, xanuun kasta noqdo ama da'da markii qofka ninka hadduu gaaro 40 markuu gaaro maxaa u fiican inuu check up sameeyo every 3 to 6 months u fiican check up oo la sameeyaa. Okay, because physical check up jiro oo blood pressure ka oo dhiigkarka qofka laga ilaalinayo
prostate diseaseska oo qofka laga ilaalinayo iyo cancers in general okay xanuunaha cancerka oo laga hadlo okay marka waa ka hortag okay xanuunka marka haddii qofka lagu arko xilli hore lagu arko daawadiisana ya xilli hore qofka la siiyaa siduu bogsado laakiin haddii xanuunka maxay xagga dambe markaad xanuunka isku aragtid aad aamustid markaas kale xanuunku wuu ku sii kordhaa qofka badankii markaas oo kalena xanuunka daawadiisa ya ama chances inuu qofka bogsado waa very low bulshadana Somaliland ama bulshada Somali people hadda u fiirsatid xanuunku way qarsadaan haddii qofka isku arko xanuun yar isku arko ama marka hore xanuunka qofku marna si xoog ku soo boodayo xanuunka marka hore ya waa very slow waa gradual it is very slow basically maxaa la yiraahdaa qofka marka xanuunka oo xagga isku arko inuu maxay xanuun yar isku arko wuu adkeysadaa badanka Somali people way adkeysi badiyihiin dulqaad badiyihiin haddaad u fiirsatid xanuunku way qarsadaan ma rabaan inay dhakhtar tagaan okay qofka marka xaaladiisa ay xumaato ya marka dhakhtar la geeyo maxaa la dhahaa dhakhtarku inuu saxdo oo jifto oo maxay xaggaas daawo lagu siiyo laakiin maxaa ku fiican every time haddii in yar xanuun oo weliga hore isku arkin kasoo qaad madax xanuun oo kale madax xanuun way qofku uu isku arkaa laakiin xanuunaha oo kasoo qaad oo maxay caloosho ama caloosha haddii meel ku xanuunto okay ama maxay ahayd kaadada ku gubayso oo kale markaas oo kale maxaa ku fiican si toos dhakhtar ku taga okay were very important prostate diseaseska xanuunaha prostateka badankii daawo waxaa la sameeyaa maxaa la siiyaa daawo kanini ama medication la yiraahdaa oo la siiyaa haddii oo qofka ku bogsanin ya medicationka ama daawada la siiyo oo ku bogsanin qalina lagu talagalaa badankii qalina lagu talagalaa maxay prostate diseaseska ama xanuunaha prostateka okay number 2 heart diseases hadda lagu imaado heart diseaseska xanuunaha maxay wadnaha haddaad u fiirsatiin horta ragga xanuunaha ragga badankii waa xanuuno qofka iska ilaali karo ama ha noqdo heart disease ama ha noqdo prostate disease ama ha noqdo colon disease waxyaabahaas oo waxyaabaha iska ilaali kartid oo lifestyle changing aad u baahan tahay lifestyle-kaaga ay ku xiran tahay hadduu lifestyle-kaaga if your lifestyle is very very maxay ahayd bad at you smoke aad sigaar cabtid or you eat too much food cuntada aad u fiirsanin cuntada aad cunaysa ama diet-ka aad cunaysid aad u fiirsanin ya markaas oo kale xanuunkaas oo kale xanuunaha badanka lagu arko xanuunahan oo kale marka heart disease waa xanuunaha oo badanka ragga lagu arko oo dumarka ay ku yar yihiin dumarka lagu arka laakiin way ku yar yihiin sababta maxaa dhacay dumarka maxay ahayd xanuunaha oo heart disease sababta u yar yihiin waa because of hormoono gaar ay leeyihiin oo si hormoonka dumarka leh maxay yihiin estrogen iyo progesterone estrogen iyo progesterone-kaas maxaa sameeyo maxay ka ilaaliyaan hormoonkaas maxaa ka ilaaliya dumarka heart diseaseska sida maxay dhiigkarka oo kale iyo stroke xanuunahaas oo kale laakiin ragga hormoonkaas ma leh markaas oo kale xanuunkan oo heart diseaseska sida heart hypertension ama maxay ahayd stroke oo kale xanuunahaas oo kale ragga ku dhaco okay heart attack ama hypertension ya badankii ragga ku dhaca okay lung diseaseska badankii maxaa keeno lung diseases ama lung cancer badankii because maxaa keeno of smoking haddaad u fiirsatiin xanuunaha badankii oo ragga ku badan lung diseaseska waa way fara badan there's a lot of lung diseases laakiin mid gaara jiro oo la yiraahdo COPD COPD ya COPD COPD waa xanuun la yiraahdaa basically waa chronic obstructive pulmonary diseases badankina chronic obstructive pulmonary diseases xanuunkan badankii maxaa keeno sigaarka haddaad u fiirsatiin qofka hadduu qofka ku dhaco chronic obstructive pulmonary disease hadduu qofka ku dhaco maxay ahayd markaas oo kale maxaa dhici karo maxaa lagu baahan yahay lung transplantation oo maxay ahayd sanbabka in laga saaro oo sanbabo cusub lagu geliyo badankina maxaa la yiraahdaa lung transplantation iyo heart transplantation way israacaan oo maxay ahayd waxyaabaha israacaan la yiraahdaa okay transplantation oo maxay ahayd ala sameeyaa so COPD waa xanuunka badankii maxaa keeno
smoking, heavy smoking, very heavy oo sigaarka wuu badsadaa. Dhakhtarka markaad u tagtid maxaad qofku uu ku weydiin doonaa, yaa muxuu dhihi doonaa maxaad leedahay ama maxay dhaqan xun aad dhaqamaha xun aad leedahay maxay yihiin. dadka qaar maxaa yidhaahdaa sigaarkan cabaa, imse sigaaraad cabtaa, yaa maalintii meeqa sigaar cabtaa ama meeqa baakaad cabtaa. So su-aalahaas oo kale waa muhiim inaad u sheegtid dhakhtarkaaga. qofka hadduu cabo 2 pack oo cigarettes hadduu cabo, chances ama inuu qaado xanuunka maaragtay COPD oo kale way badan tahay. xanuunka labaad waa lung cancer. lung cancer lung cancer-ne maxaa keeno sigaarka. u fiirsada, sigaarka waa waxyaabaha aad iska ilaali kartid, laakiin because maxay ahayd sigaarka maaragtay maxay is dhahan waa fun, dadku way ku faanaan, ama maxay dhahan stresska aan isku yareena. That is wrong. Okay, lung cancer, yeah, ama iyo COPD, these two are the two major causes of lung problem in the society. hadda bulshada u fiirsatid, dadka sigaarka maxay u cabaan fun iyo maxay ahayd xariifnimo u cabaan. ciyaal oo maxay ahayd oo 16 jir ama 18 years old ama 16 years old ama maxaa arkaysaa sigaar cabaayo ama qaad cunayo. Basically why u fiirsada maxaa dhacay, because of lack of education ama lack of awareness, in dadka loo sheegin yaa sigaarka waxyaabaha keenaan. qofka ma neefsan karo. haddii aad ogaatid maanta, haddaad ogtahay yaa sigaarka waxyaabaha oo keeno, u fiirsada qofka ma neefsan karo. He cannot breathe. muxuu u baahan yahay oxygen, muxuu u baahan yahay inuu dhakhtar jifo, muxuu u baahan yahay inuu he cannot use his own lungs. He needs help. mashiina lagu xiraa. mashiinaha qaar qofka lagu xiraayo waa xanuun. mashiinaha qaar haddaad u fiirsatiin, hadda covid-19 hadda socdo, xanuunkan covid-19 hadda socdo, haddaad u fiirsatiin yaa qofka badanka maxaa lagu xiraa mashiin. mashiinkaas oo tuumbo afka laga gelinayo waa xanuun, mu adkeysan karo qofka, because marka hore ma lagu talagalin inuu maxay ahayd tuumbo afka laga geliyo. waa xanuun zaid ah. u fiirso ninkan oo kale, qofkan oo kale COPD leh, maalintii 3 times to 4 times waa inuu tago dhakhtar. 3 to 4 times weekii waa inuu tago dhakhtarka, sida oxygen lagu xiro oo sida maxay xaaladiis lagu fiirsado. haddii xaaladiis xumaatane asi oo soo jeedo, sometimes maxaa la sameeyaa tuumbo afka laga geliyaa. tuumbadaasne waa very very risky, because marka hore ma lagu talagalin qofka inuu maxay tuumbo afka laga geliyo. So make sure yaa sigaarkaas iyo waxyaabaha xanuunaha sigaarka keeno u fiirsada, waa very dangerous. Number 4, haddaad u fiirsatiin colon cancer. colon cancer ama xanuunka caloosha ku dhaco ama mindhiciraha ku dhaco, yaa basically colon cancer la yiraahdaa. kan oo kale xanuunkan colon cancerka waxyaabo badana keeno. Okay, lot of things. Genetics keeno. hadduu aabaha ama awowa uu lahaa, marka hore uu lahaa, fursadaha aad ku helaysid way badnaanayaan. That's why aan lagu yiri qofka hadduu dhaafo age of 40 ama age of 30, yaa maxaa lagu yiraahdaa check up ha isku sameeyo oo has eego, dhakhtarka ha tago, yaa ha soo baaro. hadduu laheenan alxamdulillah, hadduu leeyahay laakiin markaas oo kale, hadduu xagga hore ama xilliga koowaad ama early stages la yiraahdo, early stages, markaas oo kale qofkaas oo kale muxuu sameyn karaa, yaa waa laga daaweynaa. yaa laakiin hadduu gaaro stage u dambeeyo, cancerka 4 stage badanka lagu qaybiyaa: stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. hadduu gaaro stage u dambeeyo, hadduu gaaro stage 4, hadduu gaaro badankii maxaa la yiri sameeyaa supportive treatment. supportive treatment markaas oo kale qofku muxuu isku diyaariyaa, gaalada maxay dhahaan, maxaa isku diyaarisaa inaad dhimatid, isku diyaari. Okay, markaas oo kale qofka maxay ahayd financial supportkii ama maxay lacagtiisa ama hantidiisa uu qaybinaa, family-gu sii qaybinaa, dhakhtarka inuu jiifo isku diyaarinaa, dhimasho isku diyaarinaa. waxyaabaha oo qofkaas oo kale colon cancerka markuu gaaro stage 4 uu gaaro, markaas oo kale maxaa la sameeyaa, xanuunka laga ilaaliya. qofkaas oo kale xanuunka bisa laga ilaaliya, laakiin wax daawo oo bogsho oo ku bogsinaya lama sii karo. Okay, so these are the most common for diseases oo ragga lagu arko badankii. haddaba dumarkan u imaano, dumarka xanuunahood ayagana gaar.
sidaad u fiirsatid breast cancer ama breast disease ama breast cancer hadda la yidhahdo naasaha xanuunaha naasaha ku dhac badankii dumarka ay ku dhacaan 99% yeah the breast diseases are more common in women than in men ninkuu ku dhaca breast cancer uu ku dhaca laakiin waa 1% laakiin waa 1% and maxaad ogaatiin haddii aad hooyada haddaad ku ogaad haddii hooyada leedahay breast cancer marka hore lagu ogaaday yeah the chances inaad qaadid breast cancer were very high yeah that's why ay maxaa u fiican haddii aad adi hooyo tahay maanta marka hore lagaa daaweeyey breast cancer lagaa daaweeyey ciyaalka maxaad ku talisaa inay tagaan dhakhtarka waa very important inay tagaan dhakhtarka maxay ahayd iska ilaaliyaan xanuunkan breast disease iyo breast cancer okay breast diseaseska haddaad u fiirsatid bulshada maartay yaa in surgery department ama qeybta qaliinka badankii yaa ay ku badan yihiin marka waxyaabaha aad isku arkaysa maxaa jiro maxaad arkaysaa nabar aad ku arkaysaa naaska hoostiisa ama korkiisa aad ku arkaysaa nabar marmar qaar maxaa dhici karo yaa qofka muxuu isku arkaa caanaha naaska inay kasoo daadanayaan yaa hooyada maxaa arkaysaa ama maxay ahayd islaanta ama inanta maxay isku arkaysaa inay maxay milky discharge ay isku arkaysaa waxyaabahaas oo kale waa marka haddaad isku aragtid si toos dhakhtar ku tag waa very important inaad iska eegtid xanuunka badankii hooyada markay dhasho maxaa la dhahaa maxay qaadaa infection oo breast infection ay qaadaa kaasoo kale waa la daaweyn karaa laakiin haddii noqoto breast cancer inta la gaarin xaaladda breast cancer yaa maxaa kuu fiican inaad maxay ahayd dhakhtarka tagtid oo check up every 2 months every 6 months inaad check up soo samaysid aad soo baartid xaaladaada aada ogaatid meesha marayso haddii xag hore lagu ogaadane you can treat it yeah number 2 gallbladder in Somali I think maxaa la yirahdaa xameytiya la yiraahdaa I'm not sure if you know the meaning of gallbladder noo soo sheega xagga comment sectionka nagu soo qora gallbladder ama maxaa la yirahdaa beeryare ama xameytida la yirahdaa I think so I'm not sure haddii aad garanaysin noo soo sheega xagga comment sectionka nagu soo qora noo sheega gallbladderka xanuunaha gallbladderka badanka maxay ku dhacaan dumarkay ku dhacaan maxaa la yirahdaa waxyaabaha oo badankii risk factor jiro oo la yirahdo 5Fs la yirahdaa 5F maxaa lagu soo gaabiyey haddii qof inanta islaanta tahay fat person inay buran tahay yeah the risk ama chances inay qaado xanuunkaas waa very high haddii tahay 40 and above yeah haddii da-deeda gaarto 40 iyo wax ka sareeyo yeah maxay ahayd chances ay qaadan karto xanuunaha gallbladder oo xanuunaha gallbladderka ay qaadi karto waa risk high haddii tahay female macnaheed maxaa waaye dumarka so saddexdaas idin sheegay haddaba labada harsan yaa noo sheegi karo okay waa 5Fs okay kii koowaad maan sheeg maxaa dhahay waa fat number 2 maxaan dhahay waa 40 jir number 3 maxaan dhahay female ma garateen haddaba labada harsan yaa noo sheegi karo qaybta comment section nagu soo qoraa noo sheega maxaa samayn kartiin google ka tagi kartaa search gray 5F of gallbladder diseases okay noo soo sheega okay so it's very important maxay inaad ogaatid gallbladder xanuunaha gallbladderka ama gallstone horta maxaa la yiraahdaa qofka maxaa la isku arkaa stone waa maxay ahayd basically dhagax oo fadhiistay gallstone ama xameytada fadhiisatay yeah so marka maxaa dhici karo obstruction ama meesha way xirmaysaa kadibna qofka xanuun badan isku arkaa gallbladderka xanuunaha koowaad oo ama xanuunka koowaad calaamadaha koowaad qofka lagu arko maxaa waaye hadduu cuno subag ama hadduu cuno maxay ahayd fatty food cuntada ku badan subaga ku badan ama fat ku badan hadduu cuno xanuun badan uu dareemaa qaybta beerka haddaad u fiirsatiin xanuun badan ku dareemaa qaybta dhinaca beerka maaragtay haddaad qofka muxuu xaggaas u qabsanaa waa xanuun zaid oo badankii muxuu dareemaa 30 minutes ilaa 2 hours 30 minutes up to 2 hours wuu cabanaa wuu oynaa laakiin after 30 minutes up to 1 hour marka kasoo wareego
relief uu dareemaa. However, qofkaasoo kale maxaa la yihahdaa hadduu qofka marka hore lagu arko gall bladder ama gallstone aan xanuunkaasoo kale lagu arko maxaa la yihahdaa please cuntada fatty food ama cuntada maxay subagga ku badan iska yaree, because it's very important maxay ahayd inaad iska yareysa markaasoo kale. Okay, yaa noo sheegi karo sababta maxaa dhacay. There's a reason, wax kasto sabab oo jirto. Fatty food iska yarey maxaa lagu dhahaa why, ya qof kasto ha baaro ha u fiirsado, waa cilmi ood u baahan tahay inaad ogaatid, ya because fatty food iska yarey sabab oo jirto. qofka ma la iska dhahay iska yarey, there's no reason oo la isku dhahay cuntada iska daa, ya so it's important inaad u fiirsatid why aa lagu dhahaa qofka hadduu leeyahay gall bladder stone ama lafaha ku same ama stoneska ku sameyso dhagax hadduu fadhiisto gall bladderkaaga, why aa lagu dhahaa sababta lagu dhahay maxay ahayd cuntada fatska leh ama saliidda leh iska daa, why sababaa jirto. sababta yaa noo sheegi karo. marka laba su-aalaan maanta meesha aan maxay bixi. su-aasha koowaad maxaan dhahay 5f yaa 3 midaan sheegay, laba harsan, labadaas noo sheega. number 2 sababta maxay ahayd dhakhtarka ku dhihi karo cuntada maxay saliid iska yaree, why hayaa noo sheegi karo. marka labadaasaan u baahnaa jawaab yaan siin doono. haddii aad jawaabta haysid qaybta comment sectionka kusoo qor si aan u arkno. number 3 autoimmune diseases. horta maxaad ogaatiin immune qaybtan maartay immune maartay yaa muxuu yahay. bini aadamka muxuu leeyahay difaac. okay, jirkiisa muxuu leeyahay muxuu leeyahay system oo la yiraahdo immune system, oo muxuu sameeyaa muxuu ka qayb qaataa inuu jirka ka difaaco waxyaabaha banaanka ka imaadaan sida bacteria iyo viruska waxaas oo kale iyo parasite-ka. yaa maxay sameeyaan maxay ahayd they defend way maxay sameeyaan they defend the body, maxay ka ilaaliyaan difaaca, maxay ka qayb qaataan difaaca jirka. yaa noo sheegi karo maanta one more question, su-aal saddexaad. yaa noo sheegi karo waxyaabaha jirka hadda naga ilaaliyo badanka maxaana ilaaliyo. haddaad u fiirsadeen jirkeena, ya there's an organ ya oo naga ilaaliyo xanuunaha waaweyn, yaa noo sheegi karo. this is very important. okay, haddaad u fiirsadeen jirkeena there's many defense system, waxyaabo badanaa jiro oo jirkeena oo ka ilaaliyo maxay ahayd xanuunaha. the first organ oo badankii oo naga ilaaliyo viruseska iyo bacteria is very simple, waa qof kasta uu garan karaa. yaa noo sheegi karo. let's check the maxay aan u fiirsano qaybta comment-kaan eegno. welcome my dear student Mohammed, you live in Mogadishu. Noor, welcome my dear student, you live Noor, kusoo dhawaaw. so okay, Ayan, Somaliland, gaar ahaan Hargeysa. Noor from South Africa. Zakaria from Burco, welcome my dear students. Now someone asks me dysphagia. horto erigan waa eri fiican. my dear student Zakaria muxuu yiri dysphagia. okay, dysphagia macnaheed maxaa waaye qofka horta erigan dysphagia macnaheed maxaa waaye qofka hadduu maxay laqitaanka maaragtay ku adag yahay, qofka hadduu wixii maaragtay laqitaanka ku adag yahay aa la yiraahdaa dysphagia. okay, Zakaria dysphagia macnaheed maxaa waaye qofka hadduu laqitaanka ku adag yahay aa la yiraahdaa dysphagia. dadka markay ka cabanayaan cunaha ka cabanayaan markaas oo kale maxay dhahaan wax ma laqiri cuntada iga daa biyaha iga daa ma doonaa candhufta xataa ma laq karaan. markaas oo kale maxay leedahay dysphagia. dysphagia waa medical terminology. maxaa la yiraahdaa qofka haddii cuntada maxay ahayd ka cabanaya xanuun ama laqitaanka xanuun ku tahay. okay, Zakaria, thank you very much. Fatma, kusoo dhawaad Fatma. Khalid from Hargeysa. Next we have Shayda from UK. My name is Hamda, I live in Sweden. I like how you explain something. Keep going. You're welcome my dear student. Hamda. Abdikarim from Hargeisa, welcome Abdikarim. I am Saeed, I'm watching from Nairobi, Kenya. Thanks for explaining these important health issues.
welcome my dear student. حميتيدا وصح. That's good. Thank you very much. سؤالنا هدات ويدي حميتيدا لا dhaho. Next we have uh, next we have fair iyo fertile. So سؤال قف with fire. Sorry. فاطمة محيد fair iyo fertile. Okay, so عشان مرك الوضع إنه سؤالين دون فاطمة okay. Okay, Sahad محيد he told us sababta oo maxay gal bladderka oo lagu dhaho qofka haduu qofkan sahad okay sahad muxuu yiri jawaab fiican uu bixiyay muxuu yiri maxay ahayd sababta ee fat metabolismka ay ka qayb qaadataa marka waa very good answer uu saxsan yahay maxay ahayd sahad gal bladderka waa storage maxay keedisaa fat enzymes ka keedisaa okay marka qofka markuu cuno fatty food cuno ama cuntada fats kale haduu cuno markaas oo kale maxaa dhaco gal bladderka ya waa maxay construction ama maxay isku imaataa maxay because gal bladderka maxaa fadhiisan dheecaankaas ya maxaa la doonayaa in laga soo saaro oo la keeno caloosha ama intestine-kana la keeno okay so we're very important marka maxaa dhici karo haddii ay meesha laf fadhiisan tahay ama dhagax fadhiisan tahay oo gal bladderka dhagax ay fadhiso haddii la isku dhaho maxay haddii maskaxda dhahdo maxay ya haddii ay dareento caloosha ka dareento inay maxay ahayd fatty food ya ay soo gashay ama sida saliid oo kale ama maxay butter oo kale maxaa dhacayo way isku imaanaysaa and what happens maxaa dhacaya haddii meesha dhagax fadhiisanta maxaa dhacayo dhagaxii the stone ama the ya dhagaxii ama meesha xiraayo muxuu xiraa meeshii uu xiraa kadibna qofku muxuu dareemaa very excruciating pain xanuun oo غير caadi u dareemaa okay so that's why maxaa la yiraahdaa fatty food ka ilaali fatty foodka ya sababta laga ilaaliyo dadka oo gal bladder stone oo leh why because the stone maxay sameynaysaa meesha ay xiraysaa meesha xirto ya that's it maxaa dhacayo qofka xanuun badan u dareemaa that's why laga dhahaa don't eat fatty food very good haddaba su-aal labaadaan idin weydiiyey su-aasha labaad yes su-aasha labaad idin weydiiyey maxay ahayd 5f 5f maxaan dhahay yaa noo sheegi karo fatma way noo sheegtay maxay dhahday fair and fertile haddii tahay hooyo oo maxay ahayd fertile oo ciyaal dhalays oo kale markaas oo kale yaa oo very risk hooyada risk ay ku jirtaa okay haddaba yaa noo sheegi karo macnaha fair okay fair yaa noo sheegi karo fair okay this is correct way saxsan tahay yaa noo sheegi karo macnaha okay marka 5fs markii kood maxaan dhahay hooyada haddii maxay ft kood maxaan dhahay waa fat haddii islaanta tahay ama inanta inan buuran yeah very high risk ay ku jirtaa haddii tahay hooyo maxay ahayd 40 jir ama 40 ka sareyso waa very risky haddii tahay hooyo oo maxay ahayd oo female basically after saddexaad maxaa usoo gaabinay female yeah after afraad maxaan dhahay fertile hooyada haddii uur qaad karto ama ciyaal dhalayso markaas oo kale waa very risky tii afraad maxaan dhahay tii shanaad maxaan dhahay waa fair okay so fair maxaan loo soo gaabiyey macnaheed maxaa waay maxaa laga wadaa yaa noo sheegi karo so labadii su-aal badankii waa naga jawaabeen yeah okay su-aasha saddexaad aan weydiiyey immune systemka badankii the most important organ oo immune systemka ka qayb qaato yaa muxuu yahay and it's always active mar kastana yaa wuu joogaa sihaad muxuu yiri WBC spleen yaa okay waan gartay okay WBC qof kasta muxuu socodin WBC yaa horta WBC waa muxuu ka qayb qaataa jirka difaaca ka qayb qaataa laakiin the organ and maxaa dhahay organ u fiirsada organ maxaa waaye organ yeah the organ which protects us every time yeah waa skin waa maqaarka haddaad u fiirsatiin waa waxa yeah naga celiyo xanuunaha badankii yeah xanuun kasto bacteria virus parasite yeah badanka maxaa naga celiyo maqaarka sare
maqaarkan sare were very important. qofku markuu gubto yaa qofku markuu gubto yaa ama ha noqoto gacan ha noqoto ama lug ha noqoto ama dhawar ama maxeed yaa hadduu gubto yaa the protective organ waa meeshuu ka baxay yaa skinkan maqaarkan sare wax badan uu ka qayb qaataa jirka yaa jirku wuu kuuleeyaa jirka maxay ahayd muxuu ka qayb qaataa difaaca jirku ka qayb qaataa muxuu sameeyaa dhaxanta uu naga ilaaliyaa so it is very important hataa biyaha maartay yaa inuu la soo daayo yaa wuu ka qabtaa marka badankii haddii jirkaaga maartay oo gubto qofkaas oo kale he has no control markaas oo kale biyo la-aan ku dhaco biyo la-aan badanka ku dhaco so qofka markuu gubto yaa waa very risky and dangerous a 48 hours u horeeyo waa very risky period okay or 48 hours the first 48 hours were very important so but most of the time yeah WBC was صح spleen was صح لكن the skin is the organ which protects us most of the time from everything every bacteria parasite viruses badan wuu naga qabtaa remember if you damage your skin the first organism oo meesha laga ilaalinayo waa tetanus that's why ciyaalka yararka oo maxay ahayd vaccination loo sameeyaa because tetanuska ama bacteriada oo keento tetanuska yaa waa very very risky oo ciyaalka yar hadduu ku dhaco ama yaa markaas oo kale yaa waa very risky ama dangerous situation ku jira xaalad xun ku jira haddaba uu noqon casharkeena immune maxaa waaye maxay ahayd xanuunka jirka difaaca haddaba jirka difaaca muxuu sameeyaa muxuu naga ilaaliyaa waxyaabaha oo jirkeena oo ka baxsan sida viruseska bacteria waxaas maxay ahayd naga ilaaliyaa however marka lagu dhaho autoimmune marka la dhaho autoimmune macnaheed maxaa waaye jirka muxuu sameynaa jirka difaaca muxuu sameynaa muxuu qabsanaa jirku dilaa jirka naftigiisa uu dilaa ama ha noqoto maxay ahayd pancreaska ama ha noqoto maxay ahayd the heart wadnaha ama ha noqoto thyroidka haddaad u fiirsatiin xanuunkan la dhaho autoimmune the WBC-ga okay ama ha noqoto WBC-ga ama ha noqoto lymphocyteska ama ha noqoto macrophageska maxaa dhacayo maxay weerarayaan jirka naftigiisa ay weerarayaan ama keliyaha yaa ay weerarayaan and it's an autoimmune disease okay badankii maxaa dhici karo maxaa lasoo saaraa antibody aa lasoo saaraa jirka immune systemkiisa muxuu soo saaraa antibodies uu soo saaraa antibodieskaas muxuu naga celinaa bacteria and virus naga celinaa laakiin marmar maxaa dhacayo antibodieska maxay sameynayaan markay naga celiyaan viruseska ama bacteria naga qabtaan muxuu sameynaa jirka naftigiisa uu attack garanaa attack ama weerar uu ku soo qaadaa jirka naftigiisa markaas oo kale maxaa la yidhahdaa autoimmune disease autoimmune diseaseskana maxay ku badan tahay women dumarkay ku badan tahay badankii xanuunaha dumarka ku badan waayo yeah and almost every time hooyada maxaa laga qabanaa autoimmune diseases ha noqoto hormonal such as thyroid problem ama pancreas problem badankii laga qabtaa autoimmune diseases maxay ku badan yihiin dumarka maxaa jira wax la yiraahdo rheumatoid arthritis ama maxay ahayd arthritis la yiraahdaa markaas maxaa arkaysa antibodies oo weerarayo maxay lafaha weeraraya ama meelaha lafaha isqabsanaya ay weeraraan waa autoimmune disease waa very risky next pregnancy disease horta hadda u fiirsatiin hooyada markay uur leedahay xanuuno fara badan ku soo baxo xanuuno weligeed hore u lahaynin yaa xanuunka koowaad oo hooyada laga ilaaliyo waa bilaa dhiig hooyada maxaa laga ilaaliyaa dhiig la-aan laga ilaaliyaa waxa koowaad oo hooyada laga ilaalin karo waa dhiig la-aan haddii hooyada maaragtay ay uur leedahay maxaa fiican inay dhakhtar la xiriirto waa very important haddaan idin sheegaa waa very important islaantaada haddii uur leedahay yaa make sure inay leedahay antenatal care wanaagsan inay leedahay antenatal care macnaheed maxaa waaye before delivery inay xaaladeeda la ogaado dhakhtarka inay la socoto oo maxay ahayd appointment ama u tagto because maxaa dhici karo
hooyada uur ay leedahay waxyaabo badan aa kusoo kordha karo. dhiig la-aan aa ku dhici karo, dhiig kar aa ku dhici karo, macaan aa ku dhici karo. waxyaabahaas oo kale saddexdaas maad waa saddexda badankii ugu dhaco. dhiig la-aan, anemia, dhiig la-aan aa ku dhici karo, dhiig kar aa ku dhici karo, macaan aa ku dhici karo. qofka markay dhiikar leeyahay islaanta hooyada markay uur leedahay oo dhiikar qaado markaasoo kale maxaa la yidhahdaa nugaha aa bararo, nugaha way bararaan. hooyada marka dhiig la-aan lagu arko maxay dhehaysa dawakhaana isku arkaa, garaaca wadnahayni wuu kacsan yahay. u fiirsadayaa calaamadahaas markaad saas u aragtid yaa si toos dhakhtarku geey yaa. haddii hooyada lagu arko maxay dawakhaan lagu arkanayaa marmar qaar maxaa dhici kara dawakhaana lagu arkay way dhididaysaa, markaasoo kale maxaa jiro macaan. u fiirsadayaa calaamadahan waa calaamadaha badanka lagu arko. haddii hooyada lagu arko dawakhaan lagu arko kow iyo dawakhaan iyo maxay ahayd iyo dhidid fara badan yaa, macaan ama maxayd glucoseka ama sugarkeeda hoos u dhacsan laga wadaa, markaasoo kale dhakhtaraa la geeyaa si toos. ama maxaa samayn kartaa haddii ama maxaa dhici karo hooyada maxay dhehaysa dawakhaan aan isku arkaa, garaac wadnahay way kacsan yahay, madaxa wuu xanuunaa, markaasoo kale maxay anemia ama maxaa laga ilaaliya bilaa dhiig waa qofkaasoo kale. okay, si toos dhakhtarku geey. maxay ahayd haddii hooyada isku aragto nugaha inay bararsi yihiin, nugaha xagga hoosi barar isku aragto yaa, waa calaamadaha oo dhiikarka oo haddii hooyada dhiikar leedahay. so always remember maxaa ku fiican haddii aad ogaatay inaad uur leedahay, always remember inaad dhakhtarka tagtid. it's very important for you because xaaladaada ala ogaana, xaaladaada kalima xaaladda ciyaalka ama insha allah billahi tacaala ala ogaana garanaysa. so it's very important xataa biyaha oo ku wareegsan ciyaalka ku wareegsan yaa haddii ay nusqaamaan ama haddii bataan yaa ciyaalka saameyn ay ku leedahay, ciyaalka waxyaabo badan saameyn ay ku leedahay. biyaha caloosha ilmaha ku wareegsan haddii ay yaraadaan ama haddii bataan yaa is very important inaad yaa kuu sheegi karo, qof kale kuu sheegi karto maleh ilaa aad maxay ahayd oo suur aad lagaa qaado. suur in lagaa qaada lagu baahan yahay markaasoo kale. waxyaabahaad samayn kartid markaad uur leedahay farmasiyaad tagi kartaa. farmasiya markaad tagtid maxaa jirto kaniini la dhaho maxay ahayd folic acid, kaniinigeedaa soo qaadan kartaa, waad habeenkii ama maalintii xabad aad laqaysaa. markaasoo kale qofka muxuu iska ilaalinaa inuu dhiig la-aan ku dhaco because folic acid iyo iron supplement aa la yihahdaa oo jirka maaragtay muxuu ka ilaalinaa dhiig la-aan uu ka ilaalinaa. marka always remember markasta maxaad ogaataa haddii aad isku aragtid haddii aad uur leedahay always maxaad tagtaa dhakhtarka si toos u tag. waxyaabaha kale aad u baahan tahay inaad ogaatid haddii matag fara badan aad leedahay, hooyada maxay ahayd saddexda bilood oo u horeeyo matagay isku arkaysaa ama laaliyad cuntada way nacaysaa yaa. because of that haddii matag fara badan isku aragto yaa jirkeed bilaa biyo uu noqon karaa, markaasoo kalena waa very important inaad dhakhtarka la tagtid. haddii maalintii 6 jeer ilaa 8 jeer ay matagayso biyo matagayso yaa waa very important inaad dhakhtarka la tagtid because bilaa nafaqaa ku dhicayo, hooyada bilaa nafaqaa ku dhici karo, ciyaalkana ma helaayo wax nafaqo oo ma helaayo. so it's very important hooyada markay uur leedahay inay leedahay antenatal care oo dhakhtar inay u tagto oo markastoo la xiriirto waxa kusoo kordhay la weydiiyo. so that's very important. so maanta maxaan baranay xanuunaha ragga ku dhaco iyo xanuunaha dumarka ku dhaco and it's mostly this can be prevented. waxyaabahan haddaad u fiirsatid maartaya waa la iska ilaali karaa. however kan ma la iska ilaali karo badankii, sometimes ma la iska ilaali karo laakiin ka hortagaa samayn kartaa. kan oo kale ka hortagaa samayn kartaa, kan oo kale ka hortagaa samayn kartaa breast cancerka waa ka hortagaa samayn kartaa. however maxaad u baahan tahay always make sure your health is better than anything else. caafimaadkaaga waa very important. so always remember to take care of your health. health is better than wealth. lacagta iyo maxay ahayd iyo caafimaadka muhiim ah because lacagta wuu ku soo gal karaa wuu kaa tagi karaane, laakiin caafimaadka hadduu mar kaa tago that's it, way ku dhamaatay. marka insha allah maanta cashirkan xaggana ku joojinaynaa insha allah billahi tacaala. that is the end of our lesson and insha allah we'll see you next time.
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu